السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج قارة كوحي لما قعد لحظي باني كرتين أي أسمي محمد حسين فريد لما نقضي وقت يسموه العنوان في هاي 3015 سيدر أمري ساوث تاريخ هو February 4 2011 kaas ayaa waxaa ka soo qayb galay lagu sagooteeyay maxamed xuseen fariid xuseen samatar oo isagu ah wadan ka tirsan golaha waxbarashada dugsiyada dadweynaha Minneapolis ibraahim caaye saciid saalax cali xasan maxamed allabari cabdulaahi maxamed cabdulqaadir faarax maxamed warsame cabdulqaadir samaysmaan daahir salaan waadiye aadan cabdi axmed gaalkacyo iyo aniga oo ah cabdiraxmaan aadan daba macallimiinta kala duwan ee dugsiyada dadweynaha iyo guud ahaan dugsiyada kale ee magaalada Minneapolis ku yaala ay u sameeyeen xafladan lagu sagootinayo retirement-ka maxamed xuseen fariid ayaa waxay ahayd mid aad iyo aad loogu mahadnaqayay doorkii hogaaminta ahayd ee uu ka soo qaatay bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota tan iyo intii uu maxamed xuseen fariid ka shaqaynayay dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis shirka noocaan ayaa waxaa loo soo agaasimay si aad iyo aad cajaa'ib u leh isla markaasna lagu guddoonsiiyey maxamed xuseen fariid kaar ay wada saxiixeen guud ahaan ka soo qaybgalayaasha aan magacyadooda soo tilmaanay iyo weliba jaa'isad abaalmarin ah oo iyadoo ah lifetime achievement oo lagu siiyey magaca jaaliyadda ama bulshada Soomaaliyeed maxamed xuseen fariid ayaa isagu wuxuu ahaa warguudkii macallimiinta Soomaaliyeed ee ugu soo horeeyey gobolka Minnesota ee iyagu wax ka bilaaba dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis kasakoo maxamed xuseen fariid ayaa intii dalka Soomaaliya dowladda ahaa wuxuu ahaan jiray mid aad iyo aad loogu yaqaanay bankigii dhexe ee Soomaaliyeed ahaana banker isla markaasna waddadiisu ay ahayd from banker to a banker ama from a banker to a teacher isla markaasna sameeyey arday dadaal aad iyo aad u xoogan ee dhinaca dhismaha waxbarashada isku xirka macallimiinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan la shaqaynta waalidiinta ay ilmahooda dhiganayeen dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis xafladan gaarka loo soo agaasimay ayaa loogu mahadcelinayay doorkii uu maxamed xuseen fariid ka soo qaatay hadday ahaan lahayd tirada xagga diinta hogaaminta waxbaridda iyo guud ahaan habka isku taxalajinayo marka sidaa iyo dhegaysi wanaagsan maxamed xuseen fariid waxaan u leenahay jasaakum allah